wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ayaa saaka kulan isugu yeedhay macallimiinta loogu talagalay inay ardayda casharada ka siiyaan warbaahinta inta lagu jiro fasaxa ardayda loo fasaxay u diyaargarowga cudurka coronavirus. Munaasabadii macallimiintaasi lagu dardaarmayna waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Axmed Maxamed Toorno, agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Axmed Abakar, iyo sidoo kale agaasimaha waaxda manhajta ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska. Ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda manhajta ee wasaaradda waxbarashada, waxaana uu iftiimiyey kulanka ujeedada laga leeyahay iyo sida loogu baahan yahay inay macallimiintani u dabaqaan habka loogu talagalay ardayda casharada ugu gudbiyaan. in iminka laga bilaabo saacaddan aynu joognay wixii ka dambeeya ay maadooyinka diyaarinteedii toos sidii ay ma og tahay barnaamijkaasi uu u hirgeli lahaa inaad kala sii ereygii daaranto iyo ahmiyadda materialska ay leedahay. intaasun baan isugu yeedhnay maanta macallimiinta inay wax weliba dhan yihiinoo mustaqbalka waxaynu gaari doonaa waqti buugaagteenna manhajka qaranka oo dhan aynu ka dhiganno ma og tahay wada xeraysano oo aynu wada duubanno. dhankiisa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Axmed Maxamed Toorno iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Axmed Abakar oo halkaasi hadalkiisa ka daba qaatay ayaa si isku mid ugu nuuxnuuxsaday sida lagama maarmaanka ugu tahay in muddada ay ardaydu fasaxa ku jiraan ay u helaan casharadii ay awal ku qaadan lahaayeen galaasyada. waxaanay macallimiinta kula dardaarmeen inay si hufan ay ardayda casharada u siiyaan, iyagoo geestoodana ardayda u soo jeediyey in waqtigaasi ay fasaxa ku jiraan loo baahan yahay sidii casharadooda u dabaqi lahaayeen. hawshan saa agaasimaha manhajteedu ku sharaxay horta waxa weeye ujeeddo laga leeyahay waxa weeye ardaydii maadaama isagoo waxbarashada socoto ina soo dhexgalay markaa xanuunkan dunida afeeyey ka hortagna guddigii qaranka madaxweyne magacaabay samayso la fasaxay in casharadii lasii wado. si guud waxaynu ogsoonahay waxbarashadu maaha ganacsi maaha, marka nooc kastoo marka xanuunkan uu yimina ganacsi looga dhigay annagu waanu ka soo horjeednaa. wasaaradduna way ka dardaarmaysaa. waxaan u baahanay ardaygu sida ugu dhaqsaha badan leh ee ugu bilaa lacagsan inay waxbarashadu markaa u gaadho. marka haddaynu marka dhibtan imaadna dadka uga faa'iidaysano dee waan kala dardaarmaynaa iskuullada barefadkaana inaanay kaga faa'iidaysan dhibkan dadka waqtiga lagu jiro. macallimiintiinan wax duubaysa sida caadiga waxayd inta la xayeysiiyo in macallimiinta markaa la kala xusho. deg deg baa yimi oo dawaska ogtiin xaalad deg dega jirta darteed baa ayaa laidinka ladii soo xulay, laakiin deg degaa keenay haddana iminka marka casharadii la dhegeysto waa la iska qaadanaya maahe macallinka yar socon waaye dee waa dib baa loogu yar celinaya casharadiisa. heshiis baa macallin kasta laga seexi doonaa. casharadana duubtaan waxaa iska lahaanaya wasaaradda waxbarashada. waxaa ku dadaalnaa dowladdu ku dadaalaysaa wasaaraddu iminka discussionkeedu socdaa in ardayda miyiga jooga tablets loo iibiyo markaa arday kasta uu keligii gurigiisa markaa ka xoolaha la jooga halkaa ku isticmaali karayo. waan ognahay dadka su-aalaha ugu badan la soo weydiiya waxa weeyaan dadka wada internet ma haystaan, wada t v ma haystaan, wada idaacad ma haystaan. wasaaraddu go-aanka inay soo saartay ma mid indhala-aan indhala-aan maaha, laakiin waa laga baarandegay go-aankan. dee ilaahay dadka muu simin oo dadku dee t v ma haystaan waan ognahay, laakiin wixii aan t v haysan si t v loo gaadhsiin lahaana dee qorshe nagu jirta. haddii dhaqaalaheena canshuurta qarankeena laga helo, haddii wadamadeena caawinaya laga helo, haddii ganacsateena laga helo, haddii la waayana dee lama odhanayo ka internetka haystanayaan la gaadhsiinay, ka internet haystay ka t v-ga haystana waa lasii gaadhsiinaya, ka kalena dee wax inoo wada yaalo weyaan. markaa dardaaran kalan ka jeedina waxa weyaan waqti koobanna hawshan waa lagu qabanayaa. gelin dambaa laidin soo celin doonaa, habeen baa laidin yeeri doonaa. wax tayale inaad soo jeedisana soo saartaan. weliba iminka markii hore fasalada lagu dhigin jiray bay ahayd waxbarashada in la gaadhsiinayo keliya kuwa fasalada dhigtay diiwaangashan, laakiin iminka caruurteenii oo dhan ayay farsamadan cusubda wada gaadhsiinaysaa. intii awoodeysa inay telefishan iyo idaacad iyo internet ay fursad u heleen. inta kalena waa kii iminka agaasimaha guud iyo madaxda sheegayeen ahayd aynu ka shaqayn doonaa sidii aynu tablet solarka ama qoraxda ku shaqeeya oo internetna ku jiro aan laakiin wax kale lagu isticmaali karayn, telefoon iyo facebook yaa waxaa lagu isticmaali karayn, shirkadaha telefoonada kala tashane oo dabeetana halkaasuna casharkiisa loogu diro. wixii uu garan waayana su-aal halkaa kusoo weydiiya dee macallimiintan oo kale tii ardayga ku salaysnayd. ardayo cidda wax isbaraysa anagu buwaagtii baanu ku siinay, waxbarashadiina inta aanu awoodno t v-gaanu kuu soo marina casharadii iyo macallimiinta wada khubaradii ee awalba wax kuu dhigi jirtay. ardaydii inagoo fursadda ka faa'iidaysanayna
fariinta aan u dirayo way waalidka iyo macallimiinta aan uga faa'iideysanayno jadwal waa inay waalidku u sameeyaan caruurtooda 7 subaxnimo ilaa 12 duhurnimo ah oo intii awalba xiisadaha geli jireen oo jadwalka la yiraahdo saacada waxaad akhriyaysaa xisaab maadaama guddiga aan ka mid ahay waxaan uga faa'iideysanayaa fursaddan inaan dadweynaha oo dhan yiraahdo war ardaydii waxaynu u xidhnay xafiisyadii in badan loo fasaxay ee xuduudihii loo xidhay waxa weeye xanuunka la iska ilaaliyo marka ilaahay inooma keeno oo inama gaarsiiyo heer la yiraahdo maca masaajidada waa la xidhaya laakiin haddii xaaladdu timaado ilaahay baa bini aadanka ayaa ka fadhiya waxa quro marka wixii lagu badbaadinayo ee aan caqiidadeena iyo diinteena waxba yeelan been isku badbaadinayna marka kulankan ay maanta isugu yimaadeen macallimiinta loogu talagalay inay warbaahinta casharada ka siiyaan ardayda muddada fasaxa lagu jiro ayaa ku soo hagaagaysa iyadoo dhawaantan ahayd markii xukuumadda Soomaaliland ay iridaha isugu laabtay guud ahaan goobihii waxbarashada ee dalka u diyaargarowga caabuqa dunida ku faafaya coronavirus awgii. Cabdirasaaq Axmed Cabdi Koronto, Somnis TV, Hargeysa.